Naasir Official Channel kala soco barnaamijyo caafimaad oo xiiso badan toddobaadkiiba hal mar. Fadlan subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada cusub. Like saar haddaad ka heshay. Share garee si aad ula wadaagto asxaabtaada. Wixii fikrad ah ama fariimo ahna noogu reeb commentiga. Maanta barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid ah xanuunada faafa oo loo yaqaano kixda. Afka qalaadna lagu yiraahdo pertussis ama whooping cough. Kixdu waxay ka mid tahay cudurrada la qaado carruurnimada. Waxaa lagu yaqaanaa qufac xidhiidhsan, neef-qabatow ama naqaskoo ku dhega, xaaka adag, taasoo ay sababto bakteeriya loo yaqaano Portodella pertussis. Kixdu waxay ka mid tahay xanuunada faafa ee ay keento bakteeriyadu. Waxaa loo yaqaanaa quficii 100 cisho. Inta uu cusub yahay xanuunku, waxa uu yeeshaa calaamadaha durayga oo kale: duuf fara badan, naqaskoo ku dhega, ilmo fara badan iyo xumad dhexdhexaad ah. Kixda waxa keenta bakteeriyada loo yaqaano Portodella pertussis. Waxa la isugu gudbin karaa ama ay ku fidi kartaa istaabashada, qufaca, hindhisada iyo hadalkaba. Muddada uu xanuunkani qaataa waa 1 ilaa 4 isbuuc. Calaamadaha, astaamaha ama tilmaamaha xanuunkan lagu garan karaa waxa ay maraan 3 marxaladood oo loo yaqaano cardiac stage, proximal stage iyo convalescent stage. Marxaladda koowaad, calaamadaha ka muuqan kara waxaa ka mid ah ilmo fara badan, naqaskoo ku dhega, qufac habeenkii soo noqnoqda iyo qufac xadanta wata, indhaha oo dhiiga taasoo ka dhalata quficii faraha badnaa, hawada oo ku yaraata jidhka ayaa la arki karaa, aamanteedka oo ku yaraada, daal fara badan, hawada oo ku yaraata jidhka, ilmaha ka yar 3 bilood, hawada oo wada gaadhi weyda jidhkiisa ayaa la arki karaa. Ilmahana waxay gaadhsiin kartaa dhimasho. Marxaladda labaad waxaa loo yaqaanaa proximal stage. Marxaladdan calaamadaha ka muuqanaya waxaa ka mid ah qufac isdaba jooga, qufac googo'an kaasoo ka sii dara habeenkii, una badan inta badan habeenkii. Had iyo jeerna waxa ka dambeeya neefsashada ku adkaata iyo matag. Waxaa si fiican loogu gartaa xanuunkan sanqadh xoog leh marka qofka kixda qaba uu neefsanayo, taasina waxay dhacdaa toddobaadka 2 kadib. Marxaladda saddexaadna waxaa loo yaqaanaa convalescent stage. Waa marxaladda bogsashada. Bukaanku wuxuu ka bogsanayaa quficii faraha badnaa ee soo noqnoqonayay habeenkii iyo maalintiiba, daalkii faraha badnaa, aamanteed xumadii oo markaa aamanteedku u furmayo marxaladdan markuu marayo. Waa marxaladda uu qofku sii bogsanayo. Daaweynta waxaa lagu daaweyn karaa antibiyootiga ay ka mid yihiin erythromycin,
azithromycin and clarithromycin. Antibiyootigani si toosa xanuunka uma daaweeyaan, laakiin waxay hoos u dhigaan fiditaankii xanuunku fidayay iyo koritaankii badnaa ee bakteeriyadu koraysay ayay hoos u dhigaan. Inta uu cudurku cusub yahay toddobaadka hore, erythromycin ayaa laga yaabaa inay wax ka tarto in cudurka laga hor joogsado inuu dadka kale u gudbo. Sidaa darteed, C7.5 ilaa 12 miligram 6 saacadoodba muddo 7 maalmood ah. Marka uu cudurku xoogaysto, antibiyootigu waxba ka tari mayso. Daaweyntu waa mid ku xidhan hadba sida astaamaha cudurku yihiin. Haddaba, daawooyinkan aynu kor ku soo xusnay ha qaadanin dhakhtar la'aantood. Waa prescription of a medication. Haddii ay jidhka xaddigii loogu talagalay ay dhaafaan, waxa ay keenaan ototoxicity oo ah deafness ama inuu qofku dhagabeelo. Waxay dhaawacaan cranial nerve 8 oo maqalka ay hoos u dhigaan. Daawooyinkan waa isku gruubkooda waxaa loo yaqaanaa macrolides. Waxay soo baxeen sanadkii 1950. Waa bacteriostatic, bakteeriyada unbay hoos u dhigaan koritaanka bakteeriyadu korayso. Sidaa darteed, dhakhtar la'aantii ha qaadanin daawooyinkan. Hooyada kula tali inay hubiso inaan ilmaha fuuqbax ku dhicin, inay ka soo saarto xaakada isjiidata ee ku hadhi karta dhuunta ilmaha, inay sii wado nafaqaynta ilmaha taasoo ah ta ugu muhiimsan. Ilmaha da'doodu 3 bilood ka yar tahay, kuwa aadka u taagta daran, kuwa nafaqa darradu hayso, iyo kuwa xaalkoodu murugsan yahay ee ay ugu darsamaan oof-wareen, qallal, fuuqbax iyo nafaqo darro, u gudbi xarun caafimaad. Xasuusnow, daawooyinka qufaca dejiya, kuwa balqanka soo saara, iyo kuwa xasaasiyaduba waxba uma taraan. Sidaa awgeed, waa inaan la siinin ka hortegid. Waxaa lagaga hortegi karaa xanuunkan tallaal vaccination. Kala fogee carruurta kixda qabta. Ku xisaabtan ilmaha xiriirka dhow la yeesha inaad siiso ka hortagga kixda erythromycin.